Booqashada dhakhtarku waa muhiim xilliga ay hooyada uurka leedahay, waxa uuna ka caawinayaa ogaanshaha xaaladeeda iyo midda uurjiifkeedaba. Maanta waxa aan ka hadlaynaa booqashada koowaad ee ugu horeysa ee uurka. Hooyada markay isbitaalka booqato waxyaabaha la weydiinayo iyo baaritaanada lagu sameynayo, waayo waa midda ugu dheer uguna baaritaanada badan. Magacaygu waa Raxmad Dayman. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo janaalka subscribe noo saar. Haddii aad horey noola joogtana waan kaaga mahadcelinayaa. Ugu horeyn hooyada markay isbitaalka imaado waxaa loo sameyn doonaa pregnancy test ama in la sameeyo baaritaan iyadoo laga baarayo dhiigga uur. Haddii ay positive noqoto waxay la kulmi doontaa dhakhtarkeeda gaarka ah. Soo dhaweyn kadib dhakhtarka waxa uu weydiin doonaa wax loo yaqaano ama uu ka qaadi doonaa history taking. History taking marka hooyada loo sameynayo su'aalo badan ayaa la weydiiyaa. Marka ugu horeyso hooyada waxaa la weydiinayaa magaceeda oo saddexan, da'deeda iyo meel lagala soo xiriiri karo. Waxa aan xoogga saari doonaa hooyooyinka Soomaaliya jooga qaabka historyga ay dhakhaatiirta uga qaadaan iyo su'aalaha la weydiiyo kuwooda ugu muhiimsan. Marka hooyada la weydiiyo magaceeda, da'deeda iyo meel lagala soo xiriiri karo, su'aalaha ku xiga ee bilaabanayo waxa ay noqonayaan su'aalo la xiriira uurkeeda ama sida inta cunug ay horey u soo dhashay iyagoo ka weyn 6 bilood. Waxa kaloo la weydiinayaa inta ilmo ay kasoo dilmay. Waxa kaloo la weydiinayaa hooyada inay qaliin horey ay u soo martay iyo in kale. Su'aalaha ku xiga waxa ay noqonayaan family history. Waxaa la weydiinayaa hooyada familkeeda sida waalidkeeda in ay qabaan cudurrada la iska dhaxlo sida sokorta, dhiig karka iyo wixii la mid ah. Isla su'aalahan la xiriira cudurrada dhaxalka hooyadana waa la weydiinayaa inay qabto iyo in kale, sokor, dhiig kar iyo wixii la mid ah. Hooyada waxaa loo sameynayaa xilliga wixii ka dambeeyo check-in. Waxaa laga bilaabayaa vital signs. Hooyada waxaa laga cabirayaa oksijiinta, neefsashadeeda, wadne garaaca iyo cadaadiska dhiigga. Wuxuu kaloo dhakhtarka qiimeynayaa physical examination wax loo yaqaano muuqaalka hooyada oo idil in uu qiimeeyo uu fiiriyo. Waxaa kaloo la sameynayaa wax loo yaqaano abdominal examination waana meesha ay dhakhaatiirta ka ogaadaan in hooyada ay horey qaliin u soo martay iyo in kale. Waxaa kaloo meeshaas laga ogaan karaa hooyada inta qaliin ay soo martay tiradooda. Waa in la qiimeeyo caloosha hooyada iyadoo kor laga qiimeynayo. Booqashada koowaad ee isbitaalka waxyaabaha kale ee la sameynayo waxaa ka mid ah baaritaano. Baaritaanada ugu muhiimsan waxaa la sameeyaa xilligan. Waxaa la baarayaa dhiigga iyadoo laga baarayo cudurrada faafa ee halista ah sida cagaarshowga iyo wixii la mid ah. Waxaa la ogaanayaa nooca dhiigga ee hooyada. Blood groupkeeda waa maxay? Ma minus ba mise waa plus iyo nooca uu ka sii yahay. Warqadda ayaa loogu caddeyn doonaa. Booqashada koowaad baaritaanada la sameynayo waa ay badan yihiin. Waxaa kaloo la baarayaa ama baaritaan lagu sameynayo urine-ta ama kaadida hooyada iyadoo laga baarayo xanuuno kale. Jawaabta kadib dhakhtarku waxa uu kuu sameyn doonaa la talin. Waxa uu kugula talin doonaa qaadashada fitamiinada kugu muhiimsan xilliga uurka. Sidoo kale waxa uu kugula talinayaa qaadashada cuntooyinka ku anfacaya ama muhiimka ku ah. Haddii ay jiraan waxyaabo hooseeya sida HB-gaaga oo kale uu yar yahay ama muuqaalkaaga uu dhakhtarka ka dareemo in tabar yari ay jirto, waxa uu kugula talin doonaa waxyaabo kor u soo qaadaya waxyaabahaas oo idil. Sidoo kale dhakhtarka waxa uu kuu sheegi doonaa xilliga aad qaadan doontid talaalka uurka ee loo yaqaano TT-da oo hooyooyinka ay qaataan inta ay ku jiraan xilliga dhalmada. Xilliga aad qaadanaysid ayuu kugula talin doonaa iyo inta jeer ee aad qaadanayso. Ballan kale ayuu kuu qaban doonaa si uu mar kale xaaladaada ugu jeegareeyo ulana socdo guud ahaan inta aad uurka leedahay oo idil. Su'aashu waxa ay tahay waa maxay faa'iidada ku jirto in hooyadu inta ay uurka leedahay dhalmada ka hor in ay dhakhtar booqato. Number 1 sida aan soo sheegnay waxaad la soconaysaa xaaladaada hadba meesha aad marayso. Waxaad ogaanaysaa miisaanka uurjiifkaaga. Waxaa jirto miisaan xaddi loogu talagalay uurjiifka. Dhakhtarka waxa uu kugula talin doonaa hadba xaaladda markaas aad ku sugan tahay. Haddii miisaankiisa uu badan yahay waxa uu kuu sheegi doonaa cuntooyin aad iska yareynaysid. Sidoo kale hadduu miisaankiisa yar yahayna waxa uu kuu sheegi doonaa cuntooyin aad qaadan doonto si miisaanka uurjiifka ugu kordho.
Waxa aan kugula talinayaa haddii aad tahay hooyo Soomaali ku nool ama Afrikaba in marka hore aad doorato dhakhtarka aad booqanaysid. Waayo waxaa dhici karto in baaritaano aad horey u martay aad mar labaad haddana aad dib u marto. Booqashadaada koowaad waxaa doorataa dhakhtar inta aad uurka leedahay oo idil aad la socon doonto. Xaalad walba oo kula soo kororto. Waliba aad rajeynayso xilliga fooshan in aad asaga ku dhasho. Waa muhiim midaas. Mowduuc ayaa jiro aan uga soo hadlay waxyaabaha hooyada ay ku dooranayso dhakhtarka ama isbitaalka. Haddaad dib u baarto mowduucyada waad ka dhex helaysaa ama fiidiyaasha aan soo geliyay. Ugu dambeyn waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Fadlan haddii aad ku cusub tahay nagu soo biiro ka mid noqo asxaabteena. Haddii aad horey noola joogtayna mar walba waad mahadsantahay.